dowladda Australia ayaa markii ugu horeysay ku dartay liiska kooxaha argagixisada kooxda Daesh ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya kadib war ka soo baxay sirdoonka iyo guddiga amniga dalka Australia. Ninka lagu magacaabo General Heather Cook oo u hadlay dowladda Australia ayaa tilmaamay in Daesh ay weerar argagixis ka fuliyeen wadamada reer galbeedka. Weeraradaasi oo ahaa kuwa ay ku bartilmaameedsanayeen muwaadiniinta kala duwan ee u dhalatay reer galbeedka. kooxaha argagixisada oo ay ka mid yihiin Daesh ta ku sugan Soomaaliya waxa ay bartilmaameedsadaan muwaadiniinta reer galbeedka iyaga oo u geysta afduubyo ay ku dalbanayaan lacag madax furasho ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda Australia. sirdoonka iyo guddiga amniga Australia ayaa ku qiyaasay tirada kooxaha Daesh ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ugu yaraan 200 oo xubnood kuwaasi oo fuliyay weerar isxiga sida ay qortay warbaahinta Australia. 6 weerar ay fuliyeen Daesh ka dagaalanta Soomaaliya sida ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saartay dowladda Australia oo markii ugu horeysay liiska kooxaha argagixisada ku dartay Daesh ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya sida ay tilmaameen. waxaa kamid ah dilal qorsheysan oo loo geystay saraakiil iyo xubno ajaanib ah oo ay ku jiraan muwaadiniin Ethiopian ah. weerar ay ku qaadeen hoteelo, qaraxyo loo adeegsaday baabuurta laga soo buuxiyay walxaha qarxa kuwaasi oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya ee AMISOM ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday dowladda Australia oo iyagu liiska argagixisada ku daray kooxda Daesh ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. kooxda Daesh ayaa weerar qorsheysan ka fuliya gudaha dalka Soomaaliya kuwaas ay ku bartilmaameedsadaan shakhsiyaadka iyagu ay doonayaan. Daesh ka dagaalanta Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay saldhigyo ku leeyihiin deegaanada gobolka Bari gaar ahaan maamulka Puntland oo ay ka dagaalamaan buuraleyda Galgala oo inta badan ay ku dagaalamaan ciidamada ammaanka maamulka Puntland iyo sidoo kale kooxaha Daesh ee Soomaalida ay ku sugan halkaasi. Australia ayaa iyagu tilmaamay in Daesh haatan ay u muuqato mid khatar ku ah hanaanka nabad ilaalinta Soomaaliya sidoo kalena ay caqabad ku noqon karaan howlaha amniga ee ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya. 5 sano ka hor ayay bilaabeen kooxaha Daesh inay ka dagaalamaan inta badan waqooyiga Afrika sida ay tilmaantay warbixintan ka soo baxday dowladda Australia. kooxaha Daesh ayaa la tilmaamay in iyagu ay xiriir la leeyihiin kooxaha kala duwan ee iyagu ka dagaalama qayb ahaan bariga dhexe gaar ahaan ururka Al-Qaacida oo la sheegay inay ka siman yihiin fikradda ay aaminsan yihiin ee ah midda jihaadiga.